wacan dhageystay ku soo dhaw barnaamijka toddobaadlaha ee danta dalalka dariska ah oo aan ku qaaday dhigno arrimaha shacabka xuduudka wadaaga iyo danta bulshada dariska ah. Xalqada maanta waxaan diiradda ku saaraynaa heshiisyada iyo nidaamka kala dambeynta wadamada iyo ganacsiyada xuduudaha. Sharciga kala dambeynta ganacsiyada xuduudka ayaa laga wadaa dastuur, xakameyn, heshiisyo, nidaam, istiraatiiji iyo qaanuun lagu hirgeliyo ganacsiyada iyo dhaqdhaqaaqyada xuduudka. Tani ayaa hubinaysa in ganacsatada ay ku xadgudbin shuruucda caalamiga, sidoo kalena ilaalinaysa xuquuqdooda, waajibka laga rabo iyo badbaadintooda. Runtii nidaamkan ayaa salka ku haya arrimo dhowr ah oo aan kaga bogan doono barnaamijkeena danta dalalka dariska ah. Barnaamijka ayaa ka kooban xubno xiiso badan, balse marka hore aan maqalno gundiga xalqadeena waxaa maanta barteena Facebook noogu soo diray mid ka mid ah dhageystayaasheena. Dhageystahan wuxuu leeyahay runtii waa muhiim in kala dambeynta iyo sharciga lagu dhaqmo si ganacsatada loo kala ilaaliyo shakhsi walbana uu xuquuqdiisa u helo. Balse su'aasha dhibtay mar walba ayaa ah faa'iidada iskaashiga wadamada sida heshiisyada, maalgashiga, barbardhigga caqabadaha sida saameynta shirkadaha waaweyn ay ku yeelan karaan kuwa wadaniga ah ee yaryar. Dhageystahaasi waxaan u malaynayaa in aad ugu soo jawaabi doontiin su'aashiisa. Waxaa jira dhowr heshiis iyo dhaqan oo ka dhaxeeyo dalalka dariska ah oo ay ugu gol leeyihiin kobcinta ganacsiga, dardargelinta dhaqaalaha, yaraynta caqabadaha iyo la jaanqaadka caalamka kale. Heshiisyadan ayaa u saamaxa ganacsiyada in ay kobcaan oo ay gaaraan suuq cusub, lana midoobaan caalamka kale. Kenya, Ethiopia oo weli ku biirin ururka Bariga Afrika iyo Soomaaliya waxay helaan faa'iidooyin badan sida cashuur dhimis iyo buunti yarayn, taasi oo sahal ka dhigaysa isku furka suuqyada gobolkani. Waa muhiim in dal walba uu lahaado shuruuc mar walba kor u qaada xuquuqda iyo faa'iidada ganacsatada. Ila soco anigoo ah Maxamed Ibrahim. Barnaamijkeena waxaa maanta marti inoogu ah Cumar ku soo dhaw barnaamijkeena. Su'aasha ugu horeysa diyan ku weydiiyo. Hore inoo sharax ganacsiga xuduudaha loo kala goosho iyo sababta ay muhiimadiisa sare ugu sii kacayso marka la eego dhaqaalaha caalamka. Bismillahir Rahmanir Rahim. Maxamed waa mahadsan tahay. Magacaygu waa Cumar, waxaan ka mid ahay ganacsatada Mandera. Marka su'aasha ugu horeyso haddii aan ka jawaabo, horta ganacsi oo dhinaca xuduud marka laga hadlo macnaha waxay tahay dadka macnaha wax kala gadanayo. Waxaan dhahnaa goods ama services waxay noqotaba oo wixii xagga looga baahnaa in inta la keenay wixii inta looga baahnaa xagga loo qaadayo dadkii oo macnaha isu gudbay labada dhinac. Waana muhiim maxaa yeelay dadkii yaaba isku dan ah waa inay wixii macnaha kala iibsadaan, nolosha dhamaala ku jirto. Marka horta ganacsiga oo xuduudaha marka midaas haddii aan tusaale ahaan aan dhahno Kenya iyo Soomaaliya, Mandera iyo Balcad isku dhow, waxa waaye xuduudaha waxyaalo ganacsi badan ka jiro oo dadka dhinacaas ay inta soo doontaan ay inta wax ka iibsadaan, dadka inta joogana xagga ay aadaan ay wax ka soo iibsadaan. Nin walba wuxuu asaga u baahan yahay dhinac kale u aadi karo. Marka labadan dal marka fiirmas dhinaca naftirkeeda xuduud dhinaca Ethiopia naftirkeeda waa isla meeshii waxyaalo waxa jira oo dhinaca looga baahan yahay iyo wixii xagga looga baahan yahay. Labada marka waa xuduudaha marka ganacsiga waa midaas. Marka waxyaalaha dadka marka ay ka gadan karaan mise ganacsi ahaan marka la suubinayo waxa ka mid ah macnaha waxyaalaha soo saarka oo wixii maartay dhulka lagu beero ka mid ah oo wadamaha macnaha xuduudka dhinacyaha walba dadka ay ka ganacsadaan. Waxa kale oo ka mid ah xoolaha nool naftirkoodii. Mandera ahaan hadda suuq xoolaha ku yaalo, xoolaha marka waxaa la keenaa ilaa Ethiopia ilaa Soomaaliya keena, marka qaarna inta laga wado ayaa xagga la geeyaa. Marka waxyaalahaas badan alaabihii, raashinkii, dhinacyihii wixii kulli la kala gadanay waxyaalo badan marka ayaa jiraan. Markaan ganacsi ahaan markaan dhahno arrintaas marka waa intaas waxyaalihii loo baahnaa in la kala gadanayo ay u weeyihiin macnaha xoolaha, wixii dhulka lagu beeray, qudaartii camal, raashinkii la cunayay, waxyaalo badan taasoo marka labada dhinacba macnaha faa'iido ugu jirto oo wax cunto haday noqoto ganacsiga haddii la dhaho dhinaca dhaqaalaha xaggiis haddii loo fiiriyo iidan muhiim ay tahay. Marka dhinaca xuduuda ganacsiga marka muhiimadiis marka waa midaas waay. Waa maxay caqabadaha ugu waaweyn ee ganacsatada yaryar wajahdo kolkay doonayaan inay u talaabsadaan wadamada kale si ay u balaarsadaan ganacsigooda? Su'aashan kala haddii aan fiirino caqabadaha
mise challenges oo micnaha dadka ganacsiga suubinay markii ay la kulmayaan wadamada kale mise dadkan ganacsi suubinay waxaan dhihi karaa kulay ganacsi walba mas wax walba la suubinay horta caqabad way leedahay challenges badan micnaha way jiri karaan kasto challenge walba micnaha meesha joogtid iyo meesha kale micnaha challenge asaga waa kale yahay marka challenge ahaan hadii la dhaha waxyaalaha ugu badan dadka micnaha ay la kulmaan waxay noqon kartaa sida amni ahaan marka laga hadlo hadii amniga uu fiican yahay waxaan dhihi karnaa ganacsiga inuu fiican yahay hadii uu amniga xoogaa yar culeys u noqdona ganacsiga culeys micnaha uu la soo kordhayo mid kale marka waxa laga yaabaa dada ganacsi raba inay suubiyaan laakiin laqaalihii mise lacagihii lagu suubin lahaa laga yaabaa inaan haynin marka taas marka waxay caqabad ku tahay businesska marka inuu sii weynaado maadaama wixii lagu weyneyn lahaa meesha micnaha aan la haynin mid kale marka waxa hadii sharciga wadanka marka mise arinta mise meesha markaas la joogo sharciga ka jiro hadii uu ganacsiga uu taageeraynin taasna marka waxay ku tusinaysaa in ganacsiga uu sii kordhi karin marka hadii oo ganacsiga la taageero dhinaca dawladda noqoto dhinaca waxay noqoto baad support mise taageer haduu helo waxa laga yaabaa inuu sii kordho mise sii weynaado laakiin hadii midaas ay dhicin la helin marka waxa ganacsiga waxa laga yaabaa inuu micnaha u weynaanin marka tusaale ahaan waxa jiro alaabo dhinacaas laga keenayo dhinaca Soomaaliya xageed tusaale ahaan masata Itoobiya noqoto laga keenayo oo wadanka la soo gelinayo marka hadii oo wixii laga rabay oo in terms of requirement-gi sida laysin amal waxyaalo waxa jiraan micnaha oo looga targalay sharciga waafaqsan marka sharcigaas looga targalay hadii aan la helin marka ganacsiga xoogaa caqabad ay ku noqon kartaa mid kale dhinacan micnaha amnigan waan ka hadalnay hadii uu amniga xoogaa yar xumaado waxay ku tusinaysaa waxay kamid tahay waxay noqon in ganacsiga uu weynaan karin marka uu sida laga rabo uu noqon karin mid kale waxaan ka hadli karnaa waxay tahay canshuuraha naftirkoodi hadii maanta canshuurta meesha mise ganacsiga lagu hayo canshuurta wixii maanta la qaaday mise bishan la qaaday hadii bisha kale lagu daro bil walba bisha ka dambaysa mise maalin walba maalin ka sii dambeey hadii lagu daro iyada naftirkeeda waxay tahay waa culeys oo ganacsiga ku imaanayo midaas oo marka ka yareynayo mise ka reebayo inay ganacsiga uu sii weynaado marka arrimahan iyo ku kala ayaa laga yaabaa marka caqabadooyinka ganacsiga yaryar ay la kulmaan sidee heshiisyada caalamiga ee ganacsigu u saameeyaan ganacsiyada xuduudaha iyo dhaqdhaqaaqooda midan hadii oo micnaha sidii oo wadamada ganacsigooda hadii agreement marka hadii aan dhaxno horta ganacsiga la soobinay waa ognahay labada dhinac waxa ugu jiro faa'iido weyn ayay ugu jirto suuqyadii ayay ganacsiga haduu kor u kaco ayaa si hagaagayo marka dadka naftirkooda noloshooda waa isbedelaysa marka waa muhiim hadii labadan wadan oo micnaha heshiis ka dhaxeeyo oo wixii xagga laga keenay inta toos u imaanayaan wixii inta laga qaado xagga toos u tagayaan heshiiskaas marka waxa wax muhiim oo loo baahan yahay ganacsiga marka waa u fiican tahay mar walba caqabadooyinka sida micnaha wixii oo dhinaca ka soo gali lahay oo lagu celinayo meelaha micnaha boodhaga lagu celin lahaa marka waxay ka saacideeyeen marka in wax walba si toos u galaan maadaama labada wadan mise wadamada dariska ay micnaha heshiis ay ku yihiin waxyaabaha mise ganacsiga dadka ka dhaxeeyo iyadan marka waa muhiim doorka urur goboleedyada sida IGAD iyo East African Community COMESA iyo kuwa kale oo badan ay ganacsiga xuduudaha ku leeyihiin marka waxa qabadka mise waxyaabaha micnaha hay'adaha sida IGAD iyo kuwan East Africa Community muhiimad weyn ayay leeyihiin hadda meesha Mandheera ahaan marka la fiiriyo IGAD waxa waxyaalo badan ay micnaha ay suubiyaan marka qaar waxay suubiyaan wacyigelinta micnaha community-ga dadkii marka wacyigelin loo suubina dadkii hal isku xiraa si ay marka u fahmaan micnaha si wanaagsan ay ganacsigooda ay u hagaajistaan
marka dhinaca dhaqaalaha naftirkooda maadaama dadkii la isku xiray dadkii training la siiyey isku imaadeen ganacsiga muhiimadiisa mise wada shaqaynta muhiimadda ay leedahay haddii laga wada hadlo iyadana maxaa la waa muhiim marka qaar dad xagga laga keenay Ethiopia masala saddexda wadan masala labada wadan laga yaabo marka qaar in dadkii loo yeero meeting mase training mase tababar loo qabto taas oo marka macnaha xooga saaraysa dhinaca nabadda maadaama aan ognahay nabadda inay tahay aasaaska bulshada mase wadanka marka haddii oo IGAD mase East Africa Community ahaan ay dadka waxaan dhinaca nabadda ay ka shaqeynayaan ganacsigana waxaa waaye uu kordhayaa waana ziyaada marka dhaqaalahan marka wax walba waa sii fiicnaanayaan marka trainingkaas waxyaalaha badan oo badanaa intana ka dhaca wadamaha la isku keenay dadkii wacyigelin loo suubinayo waxyaalihii ganacsigii horta amniga ugu daran taas haddii laga hadlo oo la hagaajiyo oo la isku keeno waxyaalo badan ay qaban karaan marka qaar waxaa waaye waxaa jira maamooyin naftirkooda oo dhinacyahan ka shaqeeya oo isku xiriira labada wadan saddexda wadan isla shaqeeya oo isku xiriira ganacsi ka suubinaya ayaa jiro marka arrimahan masdoorkan marka hay'adahan ay suubinayaan waxyaalo muhiim ayaa ka soo baxayo ganacsiga naftirkiisa xaaladiis waa hagaagi maadaama dadkii isla socdaan mas'uuliintii wadanka isla socdaan waxyaalo badan ayaa laga qabanaa amniga taas oo marka aad u taabanayso ganacsiga ka dhaxeeyo wadamada mas cross border marka waxyaalaha doorka ay ka ciyaaraan waa kuwaas aad iyo aad ay muhiim u tahay waxyaalo badan oo saas ku saabsan meesha lagu suubinayo macnaha waa jiraan marka laga yaabo ganacsi ahaan toos inta loo fariiso looga hadlin laakiin amnigii laga hadlay waxyaalo laga hadlay dadka qaabka ay isku joogi lahaayeen waxyaalo badan loo qaban lahaa midaas marka waa arrin aad iyo aad muhiim u ah marka dastuurka qaranka sidee u saameeyaa ganacsigani siiba cashuuraha heerarka iyo maalgashiga ajnabiga aan muwaadinka ahayn marka institutionka masbaha ku hadda aan soo sheegnay qaabka macnaha ay u saameeyaan ganacsiga haddii aan fiirino waxaa waaye wadan walba waxaa jira policies mise waxyaabo oo ku saabsan arrimaha haddii ay tahay ganacsi waxay qabaan arrimo policy ganacsi waxyaabaha laga ganacsanayo naftirkoodii waa wax marka xalaal ma yihiin haddii ay xalaal yihiin oo haddana waxaa jiro cashuurihii ayaa jiro license ayaa jiro waxyaalo badan jiraan marka kuwan business operation waxay noqoto waxyaalahan marka waxaa waaye waxyaalihii asaas u noqon lahay ganacsiga marka macnaha dadka ay subinayaan marka wadankii tusaale ahaan meesha hadda aan joogno Mandera mas Kenya markaan dhahno waxaa waaye sharciga dastuurka wuxuu ogol yahay dadka macnaha ganacsatada inay meel wadankaas ha noqoto inay imaan karaan ay ganacsi ku suubin karaan qofka imaada Soomaali inuu macnaha ganacsi halkan ka suubin karo qof Ethiopia ka imaada in ganacsi ka suubin karo qof walba meel ay noqoto Africa iyo Europe meel ay noqoto qof walba inuu imaan karo oo ganacsi ka suubin karo ayadoo marka la raacayo waxyaabihii looga baahnaa ganacsiga in la raaco sidii policies-ka mise sharciyadii looga talagalay in la raaco ganacsiga waa inuu yahay ganacsi xalaal ah waa wuxuu yahay ganacsiga canshuurihii looga talagalay waa in laga bixiyo macnaha ganacsi walba wuxuu leeyahay tax mise canshuur looga talagalay marka haddii policy-gii mise ganacsiga uu yahay ganacsi fiican mise xalaal haddii sharcigii mise sharciga canshuurta macnaha haddii la raaco waxyaalihii looga baahnaa kulli haddii sidii looga talagalay loo raaco qof walba meeshuu rabo waa ka suubin karaa ganacsi qofka naftirkiisa asaga naftirkiisa shakhsi ahaan waxyaabihii laga rabay oo document ha noqoto waxyaabaha ha noqoto maxaa yeelay waddan markay imaadid waxaa waaye sharci mise document waxyaalo lagu jooga waxaas markuu haysto ganacsi wuu suubin karaa sharcina waa ogol yahay wax hadda dhibaato oo saas hadda ma lahan xeerarka caalamiga ah ee heshiisyada siday u xaliyaan isku dhacyada wadamada ee ka dhasha ganacsiga xuduudaha qaabka macnaha oo dadka hadda oo wadamaha ay u xalin karaan laba wadan mise xogaha khilaaf mise cross border marka waxaa kamid ah khilaaf hor hadduu dhaco mid ugu horeysa horta waa in la ogaadaa dhibka meeshuu ka imaaday waa in lasoo dhexgalaa maxaa yeelay dadka laga yaabo intaasoo jeer in waxyaalo badan la isku gifo waa ognahay haddii alaab badan mise waxyaalo badan la keenay marka qaar xitaa la dhihi karaa wixii saacaddan laga bilaabo ganacsiga noocan waa la xiray marka qaar way ka dhacdaa marmar waxaa jira oo
qaadka meeshan Kenya laga qaado xagga la geeyo marka laga yaabo wadankaas inay dhahaan wuxuu xadda ka bilowdo ma la soo gelin karo waxyaalo badan saas camal way dhaceen marka haddii oo trade dispute haddii ay jirto waxyaalo badan qaab lagu xallin kara ay jiro waxa waaye in dad kala meel kale ka imaado wadan kale ka imaado inay soo dhaxgalaan mase ku meesha deegaanka naftirkooda inay dhaxgalaan si macnaha xal lagu helo dhaxaad loo noqdo wixii markaas isku hayay mase wixii khilaafka ka taagnaa in la xalliyo waxa waaye waxa muhiim way oo loo baahan yahay oo deegaankan mase adduunka dhan marka u fiican way haddii labadan wadan Kenya iyo Soomaaliya tusaale ahaan haddii oo disagreement mase waxyaalo ganacsi ku saabsan haddii la isku qabto hay'adaha jiraan oo sida IGAD camal oo joogo meesha boodhagi mase waxay noqoto meelahaas joogo marka inay ayaga dhaxgalaan macnaha waa xallin karaan labadan wadan isu keeno waxyaabo la isku hayay haddii la ogaado la dhaho marka arrinta saaray u dhacday maxaa laga qaban karaa waxal waa laga gaari karaa haddii loo fariisto marka waana muhiim maxaa yeelay waxyaalo badan laga yaabaa in la isku dhaco macnaha in khilaaf ku imaado canshuurta ha noqoto policieski macnaha mase requirement-ki ganacsiga laga rabo laga yaabaa hal dhinac inay ka soo bixi weysay marka kuwan igaadiyahan waxaan aaminsanahay haddii ay soo galaan waxyaalo badan oo khilaafka lagu xalinayo inay ka gaari karaan shirkadaha sidee u ilaalsadaan yoolkooda xuquuqdooda sirtooda iyo dhaqdhaqaaqooda iyagana lagu xadgudbayna kolkay wadamada kale ku balaaranayaan ganacsiga waxa waaye waxyaalo badan jiraan horta company mase shirkad haddii ay rabto inay waxyaalo badan ay suubiso waa muhiim dadka ay la shaqeynayaan macnaha bulshadii inay ogaato xaaladeeda sida ay tahay dhaqankoodii diin ahaan say wax u sameeyaan inay ogaadaan horta waa muhiim marka ayaga naftirkoodii ayagoo macnaha dantooda fiirinaya mase hooshooda ayagoo wato waxa waaye arrimaha dadka marka taxagelin waa suubin karaan maxaa yeelay qofka ganacsi tusaale markii shirkad qof uu ka shaqeynayo qaabka ku shaqeynayo maxay tahay horta waxa waaye contract iska jirto macnaha xilligan xaalad inuu ogaado xilligu waxyaalaha uu suubinayo marka maadaama ay laga yaaba inay kor u qaadaan ay rabaan waxa waaye inay ilaalsadaan waxyaabaha mise expansionka meelaha kale markay macnaha ay galayaan marka waa muhiim haddii oo qandaraaska mise waxyaalahan dadkan hadda ay suubinayaan haddii dadkan macnaha arrintoodan ay si fiican u taxgilinayaan waxa waaye waa muhiim maxaa yeelay shirkadaha kuwa camal tusaalahan kuwa oo service providers for example haddii ay tahay kuwan hadda Kenya meelaha laga isticmaalo macnaha telefonahan lacagta lagu diro ahaan haddii aad fiirisid details mise waxyaalo badan ku jiro oo dadka ku saabsan magacyihii telephone numberkii detailsii waxyaalo badan ku jiraan marka ayaga naftirkooda waa inay ogaadaan dadkan isticmaalaya mas customer ahaan markaan mise macaamiisha arrimahoodii waa inay ilaaliyaan ay macnaha ay ka ilaaliyaan third party mise qof kale meel kale joogo inay ka ilaaliyaan idana waa muhiim way haddii ay rabaan inay expand gareeyaan mise taa meesha markaas marka haddii ay joogaan xitaa waa muhiim marka arrimaha detailsiga dadka oo ay meelaha ay ku hayaan inay ilaaliyaan iyo waxyaalo kale agreement ay dadka la galeen markii ay bilaabeen mise hawsha iyadoo socoto wixii dadka la galay muhiim way wixii marka dhibaato dad u keeni karo in terms of details mise arrimahoodii maadaama data badan ay dadka hayaan inay macnaha taasna ay meesha ku jirta inay ilaaliyaan waa maxay waxyaabaha qasab ku ah oo munaasab ah shakhsi iyo shirkad walbana laga doonayo inuu raaco kolka ay ku jiraan ganacsiga xuduudka marka sharci ahaan haddii la fiiriyo waxyaalo badan lagu hagaajin kara mise ganacsiga boodhaga mise wadamaha kamid ah waxyaalo badan oo sharci ahaan lagu hagaajin kara waa jiraan haddii oo ganacsiga labada wadan maadaama ayaga ay labada kala ganacsanayaan dadkiina ay xaaladooda ay isku mid tahay isku nool yihiin labada wadan marka waa laga maarmaan inay wada heshiis inay suubiyaan haddii ay tahay canshuuraha in lagu heshiiyo si macnaha ay ugu fududaato dadkan wax kala gadanayo alaabta ha noqoto raashinka ha noqoto xoolaha nool ha noqdaan waxay noqoto marka
common ground gaas oo micnaha ganacsigaas waa muhiim canshuur ha noqoto hadii ay tahay mise xitaa ganacsiga naftirkiisa qaabka lagu maamuli lahaa markay wada heshiis mise hadii la isku imaado oo laga wada tashto marka waa aad ay u fiicnaani maxaa yeelay ganacsigii cilad mise challenge-ga hadda hore u sii sheegnay uu ku sii yaraani horumarkii ganacsiga naftirkiisa waa sii ziyaadi maadaama wax walba la isku ogyahay sida looga targalay ay ku wadaan ma jiraan shuruuc xakameynayso misna ilaalinayso xuquuqda maadaama maalmahan dambe ganacsiga digitalka ah uu sare yahay marka waxyaalaha requirement waxa kamid ah waa midan waa iska common waxa yeelay ganacsi marka meel ka bilaabaysid meel markaad wax geynaysid waa in loo ogaadaa waxay ganacsigan muxuu yahay alaabtan mise waxaan la gaday xagee ka imaadeen micnaha safety-gooda suu yahay hadii ay tahay raashin baaritaan waa in lagu suubiyaa maadaama meel ka laga soo qaado meel keenahay marka waasaas mid kale obligation-kii mise waxyaale laga rabay sida canshuurtii waa in laga bixiyaa ganacsiga hadii xaq waxa laga soo qaado may wadanka la soo geliyo mise cross border waxa noqoto hadii ganacsi meesha ka socdo wixii la kala gadanay waa inay noqdaan macna wax safe ah inay noqdaan waa mid labaad canshuurtii looga talagalay lagu heshiiyey mise aday dhinaca walba kulay waxa laga yaabaa inuu canshuurtooda ay different ay tahay marka wixii canshuur la og yahay waa in laga bixiyaa alaabtan quality-gi waa in la fiiriyaa daawooyin tusaale ahaan hadii ay tahay iska daawo macnaha inta iska soo qaadid meel iska mid wadanka la isma keeni karo waa in la baara standardgiis waa in la ogaada hadii uu yahay raashin mas waxa noqoto alaabta mas wixii markaas la kala gadanayo waa inay yihiin wax safe ah macnaha dadka isticmaalay iyadana waa muhiim wixii laga rabay oo canshuur ha noqoto sharciga laga rabay mas qaabka loo rabina waa muhiim sida loogu targalay sharciga loogu targalay waa in la mariyaa marka hadii leenkaas lagu socdo marka ganacsiga marka sida laga rabay ayuu noqonaa waa laga yaabaa inay jiraan hadii ay tahay kulli hadii meeshan hadda cross border wax badan laga soo binayo on physical goods waxyaalaha maaragtay oo caadi loo kala gadanayo oo micnaha raashin xoolo nool waxyaalaha micnaha qudaartii waxaan hadda badan u badan laakiin kulli hadii oo ay tahay services mas waxyaalo qof micnaha soo saaray hadii ay tahay in terms of digital ahaan hadii la dhaha kulay aad ugu badna laakiin ganacsi walba waxa jir sharci oo macna protection u soo binaay macna qof hal abuur wax duu soo hagaajiyay qof kale inuu qaato ma dhigi karo macna askale maadaama waxa jiro oo macna copyright issues mas copyright protection waxa noqoto marka waa muhiim qofkan wax asaga soo saaray in protection loo hagaajiya si qof kale u isticmaalin qof alaab haduu tusaalaan qof soo saaray tusaalahan hadii qofka alaab uu soo saaray macnaha wuxuu ka dhigin karaa uu xiran karaa uu dhigi karaa shaygan design-kan mise qaabkan ana soo saaray marka qaabkan yaa laga isticmaalin mise qof kale ma soo saari karo marka sharciyo noocaas ay jiraan meelaha qaar laga yaabo active inay ahayn qaarna inay tahay active laakiin sharciyo noocaas waa jiraan si marka loo ilaaliyo mise qofku wax soo saaray asaga naftirkiisa in loo suubiyo copyright protection in loo hagaajiyo marka si oo macnaha loogu xadgudbin marka sharciyo noocaas ayagana waa jiraan oo macnaha in terms of protection kii macnaha qofkan wuxuu soo saaray waa in protection lagu suubiyo si aan laga isticmaalin mas qof kale aan u qaadanin maadaama asaga uu ku soo rafaaday mas waqti badan u galiyay aad baad u maasantahay Umar waad ku maasantahay waqtigaaga bal hadii aan dhageysano afkaarta dadweynaha reer Mandera iyo waxay ka dhaheen qodobka dooda run ahaantii shuruucda iyo nidaamka ganacsiga xuduudka waa habraacyo iyo qawaaniin ay dejiso dawlad ama urur caalami ah si loo maamulo loona fududeeyo dhaqdhaqaaqaha badeecadaha iyo adeegyada iyo hantida dhexmarta wadamo kala duwan marka nidaamyo ayaa jiraan oo ganacsiga xuduudka maareeya nidaamyadaas waxaa kamid ah canshuuraha oo qaas ahaan lagu qaado kastanka badeecadaha ka gudbaya xuduudaha run ahaantii waxaa laga qaadaa canshuuro si loogu ilaaliyo dhaqaalaha gudaha
canshuurtaasi oo meesha kastanka looga qaadayo badeecad kastoo wadanka soo galayso canshuura laga qaadaa canshuurtaas oo ku dhacaysa accountiga dowladda. waxaa kaleeto oo jirto nidaamyadaas ka mid ah shuruudaha shahaadooyinka. saa ogtahay badeecadaha qaar lama iibsan karo ama lama iibin karo shahaado la-aan. marka badeecadaha qaar sida cuntooyinka ama daawooyinka waxay u baahan yihiin shahaadooyin caafimaad ama tayo leh iyadoo lagu qiimeynayo shahaadadaas ay tusinayso in badeecooyinkan aysan keeni karin caafimaad darro. shahaadadaas ayaa ka mid ah shuruucyadaas. waxaa kaloo ka mid ah xadidaadaha badeecadaha khaaska ah. waxaa jiro badeecado aan la ogolayn in loo dhoofiyo ama loo soo dejiyo dalal gaar ah sida hubka ama badeecadaha sunta leh. marka badeecadaha qaar sida daroogada ayaa ka mid ah oo waxaa jirto dadka inay ka ganacsadaan loo ogoleen oo xadidan wadamada kala duwanna oo daris wanaaga ah aysan ogoleen badeecadahaas inay isu kawshaan. waxaa kaloo ka mid ah shuruucdaasi nidaamka ruqsadaha ganacsatada u baahan inay helaan ruqsado gaar ah. ganacsatada waxay u baahan yihiin inay helaan ruqsado si ay loogu ogolaado in ganacsigooda ay uga fuliyaan wadanka ay ku nool yihiin ama ganacsiga ku sameyn rabaan. marka taas oo kale waxaa la mid ah si loogu ogolaado inay ka ganacsadaan badeecado xuduudda ka gudba. marka waxay u baahan yihiin ganacsatada inay lahaadaan ama ay helaan nidaamka ruqsadaha. waxaa kaloo ka mid ah heshiisyada ganacsiga caalamiga ah. heshiisyada caalamiga ah sida kuwa wadamada ay kala saxiixdaan ama kuwa ganacsiga xorta ah waxay hagaan habka ganacsiga xuduudka. waxaa jira labada dal daris wanaaga ah in ay heshiis ay dhex maro ay ku heshiiyaan badeecado qaas in la ogolaado sida xuduudka ugu kala gudbi lahaayeen kuwa qaarna la xadido. marka taas ayaa ka mid ah shuruucda caalamiga ee ganacsiga. run ahaantii sharciyada iyo nidaamka kala dambeeya ganacsiga xuduudka waxay leedahay muhiimad ballaaran oo waxay fulisaa ama ay hubinaysaa badqabka iyo tayada badeecadaha tayadooda ayaa la ogaanayaa kuwa soo galayo xuduudaha xaggooda kasoo galayo. badeecadaha xuduudaha ka gudbo waxaa lagu hubiyaa inay buuxiyaan heerarka caafimaad iyo ammaan. badeecada sidii daawooyinka oo kale waa in la hubiyaa inay caafimaadka ay u fiican yihiin hadday kasoo gudbayaan wadan kale. badeecada qaar dhanka amniga inay dhib u keenaynin sida fertilizerda oo kale. fertilizeryaal qaar waxaa jiraan in ay hub laga sameyn karo ama waxyaalaha qarxa laga sameyn karo. marka waa in la xadidaa. waxaa kaloo ka mid ah dhiirigeliyaan hufnaanta ganacsiga. shuruucda cad waxay fududeeyaan dhaqanka ganacsiga waxayna ka hortagaan dib u dhac. waxaa kaloo ka mid ah ka hortagga musuqmaasuqa. shuruucda iyo nidaamka joogtada ah ee loo dejiyo badeecooyinka ka gooshayo xuduudaha ayaa yareeya faragelinta shakhsiyada ku lugta leh musuqmaasuqa. waxay kaleete keentaa faa'iido kale la keeni karto waxay tahay soo jiiditaan maalgashiga xaggiisa nidaam sharciyeed oo la isku haleyn karo hadduu jiro waxay kor u qaadaa kalsoonida maalgashadayaasha caalamiga ah siday maalgashi ugu samaysan lahayn deegaankaas ganacsigiisa. waxaa kaloo faa'iidooyin ka mid ah inay difaacaan dhaqaalaha gudaha. waxay ka hortagaan dabeecadaha sharci darrada ah ama kuwa si xad dhaaf ah loo soo dejiyo ee halista ku ah warshadaha gudaha. waxay kaleeto ay muhiim u tahay inay soo kordhiso dakhliga dowladda maxaa yeelay canshuurtii baa la helayaa. canshuuraha kastanka kulli waxay ku dhacaysaa accountiga dowladda. marka taas ayaa noqonaysa il dhaqaale oo muhiim ah ee ka hesho bulshada deegaanka ama hataa ay faa'iido u noqoto wadanka dakhligiisa. taas waxaa kaleeto iyadana aan ku dari karnaa inay sii kordhiso dakhliga dowladda. waa isla canshuurta waxaa waaye dhaqaalaha wadanka ayay kobcinaysaa ay kor u qaadaysaa. run ahaantii shuruuc la-aanta ganacsiga xuduudka waxay keeni kartaa caqabado aad iyo aad u weyn iyo khataro badan oo ay ka mid yihiin midda ugu horeyso ganacsi sharci darro ah inay keento. badeecadaha sharci darrada ah sida hubka, daroogada ama dabeecadaha been abuurka ah ama daawooyinka tayadooda ay yar yihiin xitaa raashinka tayadooda ay yar tahay ayaa si fudud u soo geli kara ama uga baxa wadanka haddii la kontroolin qaybta ganacsiga ama badeecadaha soo galayo wadanka. waa hagaag haddii aan sii wadano waraysigeena cumarow maxaa la gudboon ganacsatada
oo maxay samayn karaan kolkay waddan kale dhib kula kulmaan ganacsi ahaan? ganacsatada gurubyo ay qabaan oo dad waxaa jira oo mas-uul ka ah. Tusaale ahaan Mandera haddii aan dhahno ganacsatada, dad waxaa jira oo group members oo micnaha madax ahaan ay qabaan. Dhinaca kalena waxay qabaan gurubyo oo ganacsatada iskaashatadan madaxa ay qabaan. Marka in oo dadkaas lala xiriiro si marka wixii oo qawrada camal la xallin karo, guddiga meeshan joogo mise guddiga dhinaca kale joogo malay noqotoba guddiyaha marka ganacsatada waa inay isla hadlaan. Marka waxaa waye waxyaalaha ka mid tahay oo lagu yareyn karo caqabadooyinka haddii ay la kulmaan. Midda kalena waxaa waye in la fahmo dalka ganacsiga laga wado mise arrinta laga soo banayo, micnaha importkii alaabaha banaanka laga keenayo sharciyihii looga talagalay in la fahmo muhiim waaye. Wixii laga bixinayo qaabkii marka qaabkii oo alaabta lagu soo gelin lahaa mise lagu bixin lahaa iyadana waxaa waye muhiim waaye. Midda kale waxaa jiro hay-adahan igaadhi kuwaana jiro oo wadamaha dhan ka shaqeeya u dhexeeyo. Marka wixii oo caqabada camal ganacsatada mise ay la kulmaan haddii la kaashado kolley waxaan aaminsanahay inay micnaha xal ay u keeni karaan ayagana. Sidee ay customka iyo maamulka xuduudaha door ugu ciyaari karaan guusha ama fashilka ganacsiga xuduudaha? waxyaabaha ayaga micnaha ay suubin karaan mise ay dhibaato ku imaan karto kolley wax fiican si wixii looga targalay tallaabooyinka looga targalay haddii la sameeyo horumar waaye. laakiin wixii la rabay in la sameeyo haddii aan la sameynin marka waxay noqoni dhinaca waxoogaha ganacsiga sidii la rabay ma noqonayo. Marka arrimahan customkan iyo maamulka micnaha xuduudaha haddii la fiiriyo marka waxyaalaha oo ay dadka meesha maamulka waxaa ka mid ah in micnaha musuq iyo waxyaabahan oo laga yaaba maanta wixii inta la soo geli mise xaggi loo wado canshuurtii oo laga yaabo daqiiqad mise xilli walba isbedelayso, taasoo laga yaaba xagga musuq maasuq marka inay ka imaaday. Marka haddii oo qofkii socdaba wax kale la dhaxoogo marka cilada imaani. Marka dadka meesha joogo waa inay kontroolaan micnaha ganacsiga sida laga rabo waa in lagu noqdo. Haddii canshuurtii laga rabo dadka in laga qaado waa inay tahay midda oo la isla ogyahay oo ma ahan in mar walba loogu daro. Midda kale marka waxaa waaye laga rabo inay micnaha dadkan xuduudaha mise maamulka laga rabo waxay tahay in oo mararka qaar alaaba iska soo gali maadaama meeshii xuduudii aan adkayn waxyaalo badan iska soo galay midaasoo marka laga yaabo xitaa dowladana canshuurtii ay ka helin. Marka waa in la ilaaliyaa waxyaalahan dhan canshuurta laga qaaday waa in la ilaaliyaa wixii soo galay wixii sii baxay ganacsi marka saas ku fiican yahay. Laakiin wax si micnaha qarsoodi lagu soo gali mise haddii kale canshuurtii lagu daray mise musuq maasuq dadka laga qaaday waxyaalahan marka xoogaha dhib ay keeni. Marka dadka maamulka xuduudka joogo waxaa la rabaa inay micnaha dadka ganacsatada in loo fududeeyo wixii alaab la soo galayo wixii qaabkii looga targalay haddii ay soo maraan waxaa la rabaa marka in loo fududeeyo oo aan meesha lagu daahinin oo micnaha waxyaalahan loo bahanin aan la weydiinin. Marka haddii oo ayarko faraha laga qaado wixii sharcigii laga rabay haddii ay soo maraan canshuurihii sharciyadii kale wixii kale marka ma haboono in lagu dhegnaado mise meesha in lagu hayo. Marka ayagana shaqadaas hadday qabtaan ganacsigan xoogaa waa u sahlanaana wixii laga rabina dadkan kolley waa la imaanayaan. Maxaa ka mid ah faa'iidooyinka ay wadamada ka dhaxlaan heshiisyada ururada sida IGAD iyo East Africa ganacsi ahaan marka la dhaho? Kolley haddii oo la shaqeeyo oo heshiis lala galo ganacsiga micnaha sidii qaab ugu fiican lagu ganacsadan lahaa dadka qaabka ay ganacsi ku suubsan lahaayeen haddii laga wada tashto waxyaalo badan hagaagi lahaa. Maxaa yeelay suuqyadiiba hagaagi lahaa maadaama wixii alaabta dhinaca kale laga keenay oo dhinacan loo soo gudbinayo wixii intii yaala xagga loo wareejinayo. Marka suuq xagga noqoto wadan walba marka suuq ayaaba dadka micnaha u hagaagi lahaa oo dadkiiba ka faa'iidi lahaa oo dhaqaalihii dakhligii waxyaalo badanaaba soo kordhi lahaa. Marka midda kale kuwan East Africa Community mise IGAD hadday noqdaan waxyaalo badan ayaga naftirkooda way suubin karaan maadaama wadamadii East Africa Community members marka ay yihiin waxyaalaha ugu fiican ganacsatada ay ku saacideyn karaan mise ay ku horumarin karaan waxay ka mid tahay micnaha mashruuciyaal dadka wax u taray in la hagaajiyo sidii haddii ay noqoto wadooyinka la dhisay oo wadamaha ku xiray haddii ay noqoto Kenya Soomaaliya ha noqoto Soomaaliya Ethiopia Kenya meel ay noqoto
marka mashruucyada noocan ayaa marka ganacsiga wax u taray oo wadankana wax u taray oo suuqina ku kordhay waxyaalo badan marka laga faa'iido marka mid kale waxa way hadii oo wadan ahaan la isku imaado iga noqoto East Africa noqoto marka ganacsiga iska fududaan lahaa meeshan hadda Kenya iyo Soomaaliya to meeshan Mandera iyo Baladxa waxaan marka fiirsid ganacsiga xagga hore gadaal waa loo socdaa wax hadda dhibaato weyn hadda maanta la is hortaagan yahay ka taagan malahan marka hadii wixii maamulkii alaabta si fiican ganacsiga hadii oo xoog la saaro mashruucyaal wax u tari lahaa meesha laga hirgeliyo marka wixii kulli waxa iska noqonayaan waxyaalo oo adeeg aan ahayn iska fudud oo marka dadkeena horumar ay ku gaarayaan iska noqon karta Kenya iyo Soomaaliya waxay wadaagaan xiriir ku dheehan taariikh dheer dhaqaale iyo siyaasadba maxaa ku qeexan kartaa heerka ganacsiga xuduudaha dalalkani maanta horta runtii waxa waaye hadda horta dib weyn wadamaha hadda kama taagno wadamo intaas sano isla dhaqmi jiray waay marka ganacsiga hadii aad loo ganacsi ugu socdaa labada Kenya iyo Ethiopia Kenya iyo Soomaaliya meel noqoto ganacsiga uu sii socdaa balse wali waxa sii jiro caqabadooyin ayaa jiro oo amniga ay ugu weyn tahay xuduudaha mararka qaar dadka soo food saaro marka marmar dagaal waxyaalo khilaaf waxba dhacay marka wixii marka saameynay ganacsiga oo markaas meesha ka jiray marka waxaan hadda saas u weyn maahan xilliga hadda la joogo waxa way xaalad okay waay marka mashruucyahan sida labset iyo kuwan hadii oo lagu dadaalan waxyaalo horumar weyn ayay keeni marka wadamahan xoolaha waxyaalaha maxaa raashinkan dhahna dhismooyinka alaabti waxyaalo badan hore gadaal ay isku socdaan dadkii ganacsatada ay isticmaalayaan waa maxay agabka iyo alaabaha inta badan loo kala goosho wadamadani alaabahan waxyaabaha dadka ay ka ganacsadaan wadamahan saan hore u sheegay waxa kamid raashinka oo kamid Balxaw Mandera raashinka suuftu oo Ethiopia ku taal oo Mandera diris lah raashinka badana meelahan waa la kala iibsada oo wax ka soo gala alaabaha electronic waxaan mobilada waxaan ayaga naftirkooda waxyaabaha oo ganacsada badana meelahaas ay ka isticmaalaan ay kamid tahay oo dhinaca xuduudka dhinaca wadamaha laga waxa kala jiro xoolaha naftirkooda horaan waa sheegay qaar baa laga keenay Ethiopia oo Kenya la keenaa qaar baa Soomaaliya keenay inta la keenaa qaar baa Kenya la keenaa marka xilli ay ku xirantahay xilli waxa darkii oo dhinaca Soomaaliya laga soo waday inta la keenay xillina marka inta laga waday oo meel kala loo sii qaadayo waxyaalaha kale marka waxyaalo badan jiraan oo dadka ay meelaha ganacsatada ay isticmaalaan mas ay soo gudbiyaan daawooyinka naftirkooda waa saas alaab badan alaabta dhismaha ayaa kamid waxyaabaha dadka ay ku ganacsanayaan raashinkan waaba sheegay qaadka naftirkiisa waa ognahay waxa la geeyaa dhinacaas loo qaada marka waxyaalo badan jiraan oo hadda kulli qaar laga yaabo inaan sheegin laakiin wixii hadda ganacsi aan hadii wixii inta looga baahan yahay waxay noqdaanba dhinaca kale waa laga heli wixii xaq looga baahan yahay waxay noqdaanba intan waa laga heli marka alaab badan jiraan oo ganacsatada ay isticmaalayaan dadka ay ku kala ganacsanayaan bal wax noogu sheeg doorka shacabka ee bulaalinta ganacsiyada iyo xiriirka dalalkani dadkan shacabka doorkoodii hadii aan isweydiino dadka waa dadkii shacabka horta waa dadkii waxa gadan lahay waay waxaan la soo aruurinay wadanka laga keenay inta la keenay dadka gadanay waayaga wixii inta laga qaado oo meel kale la geeyo dadka gadan lahay waayaga marka doorkooda ugu weyn waxa waay in wixii la keenay ay gataan oo wixii cross border wixii alaab la soo geliyay wixii la keenay wixii inta laga qaaday inay gataan doorkooda ugu weyn waa midaas marka ayaga hadii aan jiri lahayn ganacsi ma jiri lahayn maadaama wax gadana dayb jirin ganacsi ma jiro marka kulay arinta ugu weyn doorka ugu weyn hadda ayaga ay hayaan waa inay wax gataan mid kalena waxa way inta horta dadka meelahan degan waa dad isku dhaqan waay isku diin ay u badan yihiin saddexda wadan hadda diri meeshan hadda border triangle hadda aan joogno dadka waa isku dhaqan waay waana dad isfahmay waa isku luuqad waay marka waxa marta caqabadana ma lahan marka maadaama dadka isku dhaqan yihiin ay isku luuqad yihiin alaabihii mise wixii lagu ganacsan lahaa waa dadka waxay ay common ay ku yihiin oo wax kulay ka duwan malahan wixii xagga loo
wixii dhinaca kale looga baahan yahay unbaa intan laga rabaa. Marka waa dad oo isku dhaqan ah oo wixii kulli micnaha oo isku fududeynaya micnaha ganacsiga. Midda kale dadka ay suubin karaan mise doorkoodii wuxuu yahay waa inay micnaha maamulka meesha ka jiro waa inay la shaqeeyaan wixii qaabkii looga targalay ganacsiga qaabkii looga targali lahaa oo inay micnaha dadka kala shaqeeyaan ganacsatada naftirkooda ay la shaqeeyaan si ay arrimahooda micnaha ay ugu fududaato ganacsigana oo ugu fiicnaado. Wax ma ka og tahay doorka African Union ee bulaalinta ganacsiga xuduudaha dalalkani deriska ah? Wadamaha wixii hadda aan ka hadlayno kulli ayagan Afrikaan unbay ku jiraan. Marka mid ugu horeyso oo ugu muhiimsan waxaa way haddii lacala oo khilaaf mise wax hadda imaadaan kuwii ooraan saan u sheegay oo ganacsiga saameyn ku yeelan lahaa waa inay micnaha xalliyaan wixii khilaaf ka jiro. Tusaalaan haddii xuduudka wax ka dhaca waa inay arrintaas wax ka qabtaan maadaama wadamihii ay micnaha dadka deegaanka maamulka wixii kulli marka waxaa la rabaa in la isku keeno. Marka kulli arrinta ugu weyn hadda aan dhihi lahaa doorka ciyaaraan waxaa waaye waa in khilaaf lacala hadduu dhaco waa inay ka shaqeeyaan inay dadka xalliisiyaan si ganacsiga marka uu ku tooso. haddii midaas ay dhicin waxaa laga yaabaa ganacsiga inuu halaabo oo meesha xoogaa khilaaf uu ka imaado. Taas waa mid ugu weyn. Midda kale marka waxaa waaye ay suubin karaan qaybta horena waa ku sheegay waxaa waaye haddii mashruucyaal weyn ay meesha ka fulin karaan wadooyin isku xiray labada wadan labada dal isku xiray haddii ay jirto koronto isku xiray labada dal network isku xiray haddii jiro labada dal saddexda dal waxyaalaan marka mashruucyadan waa weyn waana suubin karaan waxayna u tahay horumarka ganacsiga horumarinta bulshada meesha degan oo markaas ganacsiga suubinayaan ayaan dhihi lahaa. Kaabayaasha sida wadooyinka iyo adeegyada kale sidee u saameyn karaan ganacsiga dalalkani maxaana la gudboon dowladahani dariska ah? Horumar marka la dhaho waxyaalo badan waxaa jira oo horumarka aasaas u ah sida micnaha wadooyinka muhiim waay meelaha wadooyinka le waa la aqaana oo micnaha dib dadka kuma qabaan. Marka haddii oo wadooyinkan waxay tarayaan marka waxaa kamid ah alaabtan meel wadanka laga qaaday wadanka la geenay magaalo qaaday magaalka la geenay saan ognahay magaalooyinka qaar way kala dheer yihiin intaasoo 100 kilomitir waay. Marka jid fiican hadduu jiro waqti yar ay ku qaadanayaan. Midda labaad alaabtii waxaa laga yaabaa sidii in lagu keeno. Midda saddexaadna qarashkii waxyaabihii micnaha buying price-ka hoos u dhici lahaa. Laakiin haddii ay wada ay jirin alaab intaasoo 100 kilomitir micnaha gaari lagu soo saaray 2 maalin 3 maalin intaas loo sugayay haddii saas ay noqoto marka waxaa waaye ganacsi naftirkiisa waxaa waaye wuu si xalaabay mise wuu si adkaani beecana waa ku darsami. Marka transportation-kan mise wadooyinkan marka muhiimada ay leeyihiin maxaa yeelay ganacsiga kor u qaadayaan dhaqsan uu imaana beec hoos u jaban dadkii oo marka si fiican ganacsi u hagaajinay marka midaas waa. Midda kalena waxaa waaye jidka hadduu fiican yahay amniga ahaan markii aan ka hadalno kulli arrimaha ugu weyn oo dhinacan degmooyinkan dhinacan laga hadlo badanaa waa amniga. Laakiin wado fiican haddii ay jirto iyada naftirkeeda waxay wax u taraysaa amniga. Amni hadduu fiican yahay waxaa waaye investment mise dad badana ganacsiga wadan kale ka imaanay oo meelaha wadankan camal imaanay oo ganacsi ku suubinay maadaama amni uu jiro. Marka investment haddii ay imaado waxyaalo inta aan laga helin haddii la keeno waxaa waaye waxayba kamid tahay horumarka ku imaanay wadanka ay kamid tahay. Dowladaha dariska waxyaalo badan ay suubin karaan si cross border mise xuduud ganacsiga xuduud si lagu kordhiyo waxyaalo badan ay suubin karaan ay kamid tahay waxaa waaye border security waxaa waaye ciidanka joogo labada dal joogo mar walba waa inay ka shaqeeyaan sidii amni waara lagu heli lahaa. Marka haddii amnigaas la helo oo meesha amni ay tahay marka waa dareemi kartaa meesha haddii amni qabto waxaa waaye ganacsatada hore gadaal way u socdaan. Marka labadan wadan waa inay ku dadaalaan sidii lagu heli lahaa amaanka muhiim waay midaas. Haddii ay dhicin marka waxaa waaye iyada naftirkeeda ganacsiga oo yaraaday waxyaalo badan marka ka halaabay. Midda kale oo wadamahan dariska ganacsiga suubinahay ay suubin karaan waxay kamid tahay sharciyada oo micnaha markaas jiro haddii ay tahay micnaha qaab waxa lagu soo gelin lahaa mise ganacsiga lagu suubin lahaa waa inay isu fududeeyaan. Procedure jiro haddii aad alaab meel kale ka keentid inta wadanka micnaha custom haddii aad soo marisid waxaa laga yaabaa documenti waxyaalo badan in lagaaga baahdo. Marka haddii micnaha processkii lagu alaabta mise ganacsiga lagu suubin lahaa
hadduu adeeg u noqdo marka dadku ay ka cararayaan maxaa yeelay ma awoodaan inay waxyaalaha qaar ka soo baxaan laakiin haddii ay dhacdo in macnaha alaabta wixii laga baahna ay fudeed tahay meeshii aan lagu daahaynin leen dheer la galaynin oo waxaad markaad imaadid laga fiirnay hore canshuurtaadii la ogyahay aad dhiibaysid hore u sii soconaysid waa kuu sahlanaani marka haddii laakiin lagu adkeeyo waxaa laga yaabaa dadka ganacsatada inay meesha ka cararaan marka midda kale marka waxaa waaye suuqa naftirkiisa mise waa in macnaha dadka loo dadaalo wacyigelin loo suubiya maamul ay qabaan wixii caqabada mise dhibaato ayaga haddii ay la kulmayaan waa in macnaha in laga warqabo si hadhow wixii xal loo gaari karo oo laga gaaro muhiim way taas halkaas ayaan ku soo afmeeraynaa xalqadeena maanta waan diiradda ku saarnay heshiisyada iyo nidaamka kala dambeynta wadamada iyo ganacsiyada xuduudaha waad ku mahadsan tahay dhageystayaal la jaanqaadkaada nagala soco baraha bulshada ee Facebook X iyo YouTube ciwaankuna waa danta dalalka deriska xalqada xigta waxaan diiradda ku saari doonaa hadduu Ilaahay idmo doorka shakhsi walba ee ka hortagga iyo ka xakamaynta xadgudubida ganacsiyada iyo kontrabanka ilaa iyo kulanti dambe waxaan kaaga tagayaa anigoo Maxamed Eki Ibrahim sidaas iyo nabadgelyo